Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool tuulada Danuun ee gobolka Western Cape ee waddanka South Africa ayaa dib u bilaabay ganacsigooda kadib markii dhawaan banaanbaxyo rabshado wata ay ka dhaceen tuulada Danuun. Xilli telefishinka caalamiga ee Somali Channel oo booqasho ku tagay tuulada Danuun ayaa waxay indhaheenu qabanayeen qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo dib ugu soo laabtay goobahooda ayagoo xilligaasi ku mashquulsanaa raseynta alaabaha ay ku iibinayaan goobaha ganacsiga. Qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayaa dareen wanaagsan ka muujiyay soo laabashadooda. halka aan ku noolnahay marar badan qaalaas waa ka dhaceen alxamdulillaah waxba nagama soo gaarin balse hadda xaaladda way degan tahay. xilligii boobka uu ka dhacay halkan sidee wax u dhaceen wallaahi niyow horta xilligaas horta ilaahay unba horta qofkii markaa joogtay ama xaafadda ku noolayd horta way markaa qofkaasi kale way dareemi kartaa horta si wax u dhaceen. maanta alxamdulillaah 3 bilood muddo 3 bilood laga joogaa dadku wuu soo wada noqday dukaamadii waa la iska soo noqday dadka qof kastaaba waxa sunbu wax yar ka raadsanayo ganacsigiisa naftiisa ku xidhnay. sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka Safe Somali Community Abdi Calas Guure oo aan kula kulmay tuulada Danuun ayaa iga warbixiyay sida ay wax u dhaceen xilligii boobku u dhacayay isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay soo laabashada ganacsatada Soomaaliyeed ee dib u bilaabaya ganacsigooda. waa sidaad arkayseen maanta kulay deegaanka Danuun waxa waaye waa meelaha ugu dambeeyay boobka ugu dambeeyay ka dhacay Soomaalida lagu barakacay iyo dad kale foramka marka waxay sababtay in hadda dib ganacsiga u soo laabto tartiib boobka kadib marka waad u jeedaan maanta dibku dhacaa kulay mudaharaadku qaabka uu ku bilowday iyo sida uu ku dhacana kulay waad ka horeysaan malena marka xilliyada boobka loo geysto ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha waddanka South Africa ma jirto cid ka caawisa inay dib ugu soo laabtaan goobahooda. Cabdiraxmaan Cabdulaahi Amaan Cade telefishinka caalamiga ee Somali Channel South Africa.